laba sano iyo dhowr bilood buu Abuubakar talada ummadda u hayay Soomaaliya maalintuu geeriyooday Abuubakar godka lagu riday inankiisa Cabdiraxmaan ibn Abi Bakar oo dhaqaale sida ayaa yimid oo baytul maalkiiba lacagtii ku soo celiyay Cabdiraxmaan bin Awf ayaa ku yiri waa maxay lacagtan aad wada halkeed ka keentay wuxuu aabba igula dardaarmo igu yiri Allah u naxariisto Allah raali ka noqde wax hantiya hadaan dhinta maanta dhulkaas aan leeyahay dhulka gad oo iibi labadii sano iyo muddadii talada ummadda aan hayay baytul maalka muslimiinta intaasan masaariif ka qabaaye igaga celiyay buuri qiyaamaha inaan waxba la igu yeelan aniga innaka muslimiinteena zamankan waxa laga yaabaa gaalay ku sheegan horumar horumar 200 oo sano oo hadda 200 oo sano oo isticmaalkan adduunka Ingiriisku qaybiyay taariikhdii 200 ee sano dhalinyaradena lagu qufulo iskuulada loogu dhigaa 200 oo sano ka hor ummadii talinaysay caalamka hogaaminaysay taariikhdeedina maanta waa la inaga masaxay 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda Abuubakar u hayay wixii masaariif baytul maalka uu ka qabay uu soo celiyay laana umay qabin iyagu mas'uuliyadda inay dhaqaale ku qaataan مسؤوليته waxay u arkayeen xilligii ummadda nabiga loo adeegay ummadda loo khidmeynayay lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu waxay uga baxsanayeen inay adeeg tahay bay fahmeen iyagu halka inaguna maanta mas'uuliyadda aan lacag ku doonayna lacag ma meel kaste maaha wadankan kaliya ma caalamul islaami oo dhan ba maanta noocaas adeeg bay u arkeen ummadda u adeegayaan lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu زمن كنا ضد بدن مسلمين وحي واركان حلكا حلقي أقل لديسن لها يا أبتك وحلوق من لها إني تحي لذلك ويكون أرضان بل ويبسن يا بكراسدي سلوت دورتو لعقو بحنيا لعقته بحنيا محوق الجيدا هدوت ولا لعق بدن هكا قبت تقوليها ماشو أقل هود استدعي الكاغا عبد الرحمن بن عوف الله رالي كان نقول لعقتي ويلكي عبد الرحمن إن أبي بكر انتو سوق هذا أي عمر وكاني بل دقيس عمر ونكن عليا markii arintii Umar loo sheegay Umar qabriga Abuubakar buu dul tagay wuxuu Abuubakar waadna daalisay buu keenay waadna daalisay aniga iska daayay madaxda ka dambayso oo dhan siday u leeyihiin Abuubakar ku dayda ayaadna daalisay buu keenay Abuubakar مثل عمر بن الخطاب madaxdiisa wuxuu kula dardaarmayay saddex shay habadilina buu oran jiray saddex shay aqaladiina albaabadoodu iridu ha furnaato darka aad nabi maxamed uu nigaga dhintayna habadilina sufrada cuntada aad ku cunaysaan ta muslimiinta daciifka uu cuno waa inay la mid noqoto buu oran jiray cunada afqar muslim fi baladikum uu cuno waa inay inkuna cunadaas oo kale la cuntaan buu oran jiray amma hantida baytul maalka ku jirta waxa uu tusay Umar ummadda in hantida ummaddu ay leedahay ummadda loogu khidmeeyo wallahi Umar ibn Khattab maalin maalmaha kamida isagoo shuuradii asxaabu Muhammad sida u dhax fadhiya ayuu madaxa intuu qabsaday buu sida u naqas ba ka soo baxay markaas la yiri maad bugtaa may ma buko ma waxbaad maqashay oo naga qarinaysa may waxba ma maqlino waxa naga qarinayo iga naxiyay ma jirto haddaan naqaska ka soo baxay madaxaad qabsatay kulli murug baa ku haysay noo sheeg annagu dhahan kula wadaagne markaas uu law asara dabbatun fil iraqi la su'iltu anha lima la tuslih laha at-tariqa ya Umar faras iyo dameer iyo baqal Iraq ku nool haday turoodaan waxaan ka baqayaa qiyaamaha in la igu qabto la weydiyo la igu yiraahdo ya Umar fardaha iyo dameeruhu jidadka ay marayaan maxaad ugu hagaajin weyday bani aadamkii xuquuqdoodii intay gaarsiiyeen ayay ka fikirayaan dameerka iyo faraska iyo baqashu meeshay mari lahayd inay wadada u hagaajiyaan Allah ina fahamsiyo wadankan Faylan ayaan bari anakoo jamaaca tagnayo waanu fiirsaday baabuurkii yara waday u sameeyeen basaskii rukaabka waday u sameeyeen tareenkii waday u sameeyeen qofka baaskiilka waday u sameeyeen ka lugeynaya wada gaar ay u sameeyeen ka ayga wata meelaha rest area lagu nasto meel gaar ay u sameeyeen ilayeen halka adigu fadhiiso wax ciidan oo ilaalinaya ma jirto nin walba nidaamka wadanka loo dajiyay ee televisionka loogu sheegay ayuu ku dhaqmaya oo ilaalinaya noloshii adduunyada saas ay ku hagaajisteen innakii muslimka ahna maanta xaalkeena